أمدا نينكي قبي جري بقول فيديو كدوبي سولوغو ugu xura kaamirada hadii ogow markuu fiidiyoyada duubayo nin baa qaba waa nin bay xaaskiisa tahay rabadaan bay ahayd betri ciyaalkayga soo booqanaya buu yiri guriga saasoo ku soo galay ay ku soo xirays suuligu ugu rakibay meel uu cafiyay male meel walba fiidiyo buu kaamiro ugu xura aduuna akhrisanay nin aan ku qabin oo aad kala tagteen nin kale xilihiisii tahay waxa guriga ku soo galiyay baaba khaladaba khaladka ugu weyn aad gashay waa ka ahaa banaankan ku wada kulmayna inaad tiraahdo ilmaha ku arkaysa taa waxa iiga daran wax ka daran taasi ma jirtay si socod iyo soo socodba hadii la duubtayo kor ilaa hoos kulli uu wada duubay ninka kani iyada soo kaxaysay Mareykan buu joogaa maxay u dacweyn weeyay saasay tahay oo si naxariisata le waxyaabahan oo kale hadii lagu dacweeyo kaamirooyinkuna guriga ku xiran yihiin uu laqaya xabsiga waxa tiri gurigii aanu deganayn oo ciyaalkaygu lahaayeen oo lacagtoodii kala baxeen isaga isku qoray wuxuu yiri ka baxa ilmahayga laba kamid ah saddex bay u dhashay waaba istilayaabeen anoo qalanna inuu iduluuba rabay guriga dhexdiisa gurigan hadda deganahayna furihiisa isagaaba haystaba ninkii uu ku qabay mee wuxuu ninka kaaga celin waayo oo kaaga tumi waayay mee ma cidla laga helay waxay tiri dadkoo dhan way ugu daawanayaan oo ninka aan hadda guursadayna walaalahay raali kama ahay balaaya maamada haysata ninkaasan garuuriga waxaad guriga ugu soo xiraysatay oo haddana aad waliba u sii ixtiraamtay inaad dawlad u geysid walla boqorad baa taha waan dhaadhicin lahaano nin qabi jiray intuu gurigayga soo galo aduu kaamirooyin ku xidho iduubo warabul ciisa waa la weyn lahaa nuurkiisa la weyn lahaa nuurkiisa ninkaasi bari buu jiri jiray makaara maray ma diyaarad baa martay ma sabع samaawaad buu ka soo dhacay baa la dhihi lahaa sababtoo oo qof bareera cirdigayga iyo sharaftayda inuu dhulka la galo anoo nin qabo waxa uu iga duubtaaba khaladaba ya wala waa qisa aan ku wareeray inaan ku qaban guriga soo xiree kaamirooyina kugu xiro kulay waa dhibaataysan tahay qoftaasi haddana saasay tahay iyada miskiina sababtoo ah sharciga ka leexleexanaysaa arintaas hadee wax ka jireen ilmaheeda inay ku cafisaa laga yaabo istiraado aabahood xabsi hageeliye ilmuhu ka waalan dumarka intooda badan wada naxariis iyo ilmuhu ka waalan stress ka dareemay mar hadii ilmaha gaadhay inay dhahan wan isdireynaa sababtoo aabahay baa u dhaqbaya naaxir xabsiga gee kaasoo kale waa la dhaadhay waa la isdhaafiyaa ya wala isdhaafiyaa wallahi ninaad Afrika ka keentay haduu sidaa kula dhaqmo waxay tiri hadda xataa aan la hadlayo waa baqaya kulaha oo guriga furihiisii buu haystaa oo guriga furihiisa maxaa u dhiibay mid kale haduuba guriga nin fura gurigii haysta maxaa ku dhex dhigay oo gurigu isagu isku qoro la wareegay maad baxsato walaal meel kale degto